agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Saciid Axmed Jibriil ayaa maanta xilkii u kala wareejiyay golihii hore deegaanka degmada Cerigabo iyo golaha cusub ee dhawaan la soo doortay waxaana munaasabadii xil wareejinta oo ka dhacday dowladda hoose ee magaalada Cerigabo ka qayb galay barasabka gobolka Sanaag Injineer Axmed Cismaan Xasan Maayirka magaalada Cerigabo xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka degmada Cerigabo iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanadii hore waxaana ugu horreynba halkaasi ka hadlay maayirka degmada Cerigabo maayir ku-xigeenka cusub ee magaalada Cerigabo iyo maayir ku-xigeenkii hore ee degmada Cerigabo annagu degmooyinka eega baanu ka mid nahay aan ka fogaano caasimadda aan ka fogaano dheri ninku dhow laf kala baxaa caasimadda aan ka fogaano hay-adaha caalamiga ee hargeysa ku fara badan kolleyba waxaan isleenahay dadaal badan baa samayseen qoladan cusubna waxaan rajeynaynaa inay halkaasi anbaqaadi doonaan haddii aan yar ugu noqdo oo sii bayaamiyo waxaana indhihiinaa ku arki doontaan waa hanti taalla meesha ama gaadiida ama maxaan ku lahayay alaabooyin kale ah waxaana waa kala ergaranaynaaye oo inkastaan xogayaa ku celin doonee annaga maanta bishii juun baynu joognaa 30keedii wax mishaarowna la ku leeyahay ma jiraan bisha juun waa bixinaan waxaynu halkan ku qabanaynaa xafladda xil wareejinta golihii hore ee deegaanka degmada Cerigabo iyo golaha cusub ee hadda la soo doortay runtii annagu haddaan nahay mas'uuliyiinta ama xildhibaanada afka golaha deegaanka oo duq nagu hogaaminayo maanta laga bilaabo iyo maalintiina la dhaariyayba kuma metelo halkan xisbiyo kuma metelo dad gaar oo soo doortay waxaan ku metelaa degmada Cerigabo dhamaanteed anigu haddaan hay maayir ku-xigeenkii hore maayir ku-xigeenka cusub Cabdiraxmaan saaxiibkay waanu nahay nin hela waanu dhowr meelood iskaga soo laabanay waanu xididnimo iyo xigtanimo isugu soo laabanay hore aan ugu wareejiyay anigu xilkii xafiiskiina waanu dhiibay furihiina waanu dhiibay maantana waxaad markhaati ka noqonaysaan oo aan halkan u taagnahay xilkii aan hayay mas'uuliyadaasi intii ay laakayd waxaan ku wareejiyay maayir ku-xigeenka cusub kolba xilku way iska mareegto hadba waa la isbedelaa bedelka insha Allah waxaanu jecelnahay anana qolada dambe sida noogu faanaysan aan leedahay magaaladan oo bilaalaamin aanu u nimi inaanu dhowr laami baanu u nimi oo 700 wax inta 90 kiiloomitir dhowr kiiloomitir baanu u nimi inaanu anana war dhamaystirnay wixii aanu dadka hore ay sii qabteen mas'uuliyadu aad u culus baa qaadeen qofka caawa baahan Cerigabo ee aan dabka shidan waxa laga rabaa golaha deegaanku inay ogaadaan oo dadkeena jilicsan laga warhayo ilaahayna maalinta qiyaamo weydin weydiin doona mas'uuliyadda ay qaadeen haddii ay cadaalad ku salaysaan iyo haddii ay idinka janjeersato labadaba maxkamad baa idinka dambaysa maanta haddaanu taagannahay maalin aanu xilka wareejinayno ilaahayna uu nagu simay inaanu xilka ku wareejino xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka ilaahay waxaanu uga baryeynaa inuu xilka ay qabteen uu u fududeeyo ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay barasabka gobolka Sanaag Injineer Axmed Cismaan Xasan iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland anagu baxaan ka gobol ahaan waxaan nahay qoladii u horeysay ee degmada Cerigabo ay soo diyaariyeen halka qalabkii wali sidii uu yaallay inta la aqriyay maalintii halka ka aqrinay iyadoo documenteena waa la hayaa oo duuban insha Allah horeyna qoraalkeeda waa idinku soo gudbinay ka wasaaradahan runtii annaga hadal badan oo halka noo sii yaalay ma jira waxaan ku faraxsanahay inaad soo gaadhaan oo markhaati nooga noqotaan waan la soconay inaad markii ugu horeysay markii wareegtir aan soo saaray muddada kala guurka ah ee doorashada ka horeysay ee campaign-ka la gelaya laga mashquulayo shaqooyinkii intii badnayd si aanada yacaad ugu iman wareegtaan soo saaray in golayaashii joogay iyo iskaashadaan gudoomiyaasha gobolada si loo ilaaliyo hantida ummadda waa muddada la mashquulayo ma ahayn cid baa xadaysa cid baa meel la tagaysa laakiin haddii la sii jeesto cid inay wax ka faa'iideystaa laga yaabaa waad ku amaanan tihiin si aanay gobolada kale iyo magaalooyinka kale samayn baad samayseeno waad soo bandhigteen oo golihii hore wuxuu yidhi waxaasaan bulshada u haynaa muddadaana waxaasaan qabanay markhaatigeeday lahayd markii labaad xilkii waxaad ku wareejiseen golaha cusub
waad ku mahadsantihiin annaguna sunnihii dowladnimo maan dabaqayno mar haddii golo cusub yimid siyaasadda wasaaraddu waa in loo tagaa golo walba intii la gaari karo dabadeedna wixii ay hayaan iyo halka ay ka bilaabayaan rikood wasaaradda yaalla uu noqdo mid ku cusub buu ahaa runtii intii golo cusub imanayay cabdiraxmaan cadaani telefishinka sahan magaalada Cerigabo.